بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال وين سلامي ومدى الصوماليات ميل والبي اي جوجتو سلام الله عليكم ميل والبابا كنا بتقلا ان هدي اد نلا جوجتنا waa mahadsan tahay asxaabtaada kala gaarsi hadii kale nagu soo biir oo maaragta subscribe-ka noo saar hadii alleen walaalayaal sid ogtihiinba muddo 2 bilood ilaa 3 bilood wax ku dhow waxa jirtay khilaaf ama is afgaran waa u dhaxeeyay madaxda ugu sareysay ee dawladda dhexe Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble arrin in muddo maaragta xafiisyadu dabka maysan kala qaadan waxaana dabcan arrinta ay ka bilaabatay maaragta in la yiraahdo oo la waayay raq iyo ruuxba ilaa haddana ummadda Soomaaliyeed ay ka qarsoon tahay gabadha la yiraahdo Igraan Tahliil dabcan waan rajaynaynaa gabadha in Ilaahay uu soo sahlo waxa qodobkaygu muhiimka uu yahay in badan ayaa la ragaadiyay dawladnimada Soomaaliya in badan bay u ragaadsaneed oo arrinta la isku mar waayay waxa dhacday in ra'iisul wasaaruhu in muddo uu ku soo celiyo maaragta haduu alla ku roon yahay cadaaladda Igraan Tahliil dabcan cadaalad muusan sameyn ra'iisul wasaarihi wali waa ka sugaynaa maaragta ra'iisul wasaaraha gabadha dadka gacmaha lagu tuhmayo inuu gacmaha ka qabto cadaaladda horgeeyo cadaaladda la saaro dabcan halkaa aan ka ogaan inta ka horeysa asagan ka warsugi doonaa hase ahaatee khilaafkii iyo isfaham daradii asaga iyo Farmaajo ka dhaxaysay dabcan waa la soo afjaray maxaa sabab inta lagu soo afjaray madaxda Soomaaliyeed way heshiisiin weysa dabcan maaragta in badan baa la isku day safarkii ugu dambeeyay uu baxay ninka odaga uu tagay qadar ayaa maaragta gacan salaax iyo ka soo helay dabcan cid walba fahmi kartaa inuu meesha xoogaa dhaqaale ka soo helay wuxuu u digay dam lahaana inaysan cadaalad ahayn waa muuqataayo halka markuu ka yimid oo halkan yimid ayaa ugu dambeysay Igraan cadaaladeed oo ka hadlo ilaa iyo markii dambe aan ku aragnay xafiiska asoo ku jiray maaragta Farmaajo asagoo la maaragta madaxweynaha asagoo la hadlay ra'iisul wasaarihi in badan ku galgalanay ama xataa gaartay heer ay gaartay xataa madaxweynaha in xataa khudbadihiisa iyo qoraaladiisa iyo xafiiskiisa qaybta warbaahineed in xiriirka loo jiro oo waliba warbaahintii qarankan uu lahaa ee loo sinaa ee ummadda Soomaaliyeed ay lahayd in loo diiday madaxweynaha ee la yiri halkan maaha halkii aad ka hadlaysay ee doono meel kale aad ka hadli karto ilaa wax walbaba arrin walba nooc walba uu sameeyay ra'iisul wasaarihi uu maaragta dawladda ku roon yahay boor isku qarin badan kadib Farmaajo ayuu la heshiiyay isagoo waliba maaragta waxa macnaa meeshu dagaalku ka bilowdana ay ahayd meesha la yiraahdo NISA maaragta intelligence-ga ummadda Soomaaliyeed maaragta meesha la yiraahdo nabad sugidda halka uu ninka odaga Fahad uu ka qaaday xilkii dabcan meelkii ugu dambeysana uu halkii waliba uu joogo ragii la lahaa waxay ka dambeeyay Igraan Tahliil asagoo dadku u meerinayay oo la cadaalad baa u raadinayay ragii in loo dhibay ilaa iyo maanta ay hayaan ra'iisul wasaarihi dabcan wali waan ku sugaynaa oo ku ixtiraamayna maadaama ra'iisul wasaarihi qarankan uu yahay Igraan cadaaladeedii laakiin waxa muhiim ah kaliya in ummadda Soomaaliyeed loo sheego cadaaladii maaragta Igraan Tahliil waxa ka dambeeyay safarkii qadar maaragta halkaasoo gacmo dhaqad ama saabuun yaro la soo siiyay oo la yiri bal inta ku siiso maaragta hawshaana kor isaga bax waxa walbaba ay ahaataba maaragta qodobadaas oo faahfaahsan dabcan markale aanu ka dhiganaynaa hase ahaatee waxaan rajaynayaa maaragta muhiimadda arrintan ay tahay in wali ra'iisul wasaaraha looga fadhiyo cadaaladii Igraan oo ummadda Soomaaliyeed 3 bilood la hortaagnaa asagoo maalinta dambe markii dambana la arkay xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shiray asagoo mar walba muujinayay in madaxweynuhu uu maaragta diidan yahay cadaalad in loo helo inan taayar ee raqeer ruux ilaa hadda ummadda Soomaaliyeed aysan ku hin ra'iisul wasaaruhu asaga maaragta gaarsiiyay heerka asaga laga doonayaa dabcan waxa kalena waa isaga iman doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh